kalarka saddexaad oo kaadada ku arki karto wuxuu yahay kalarka la yiraahdo redka ama guduud. haddii kaadada guduud ay noqoto ama dhiig oo kale ay noqoto, runtii waa xaalad aanan ficneyn oo waxay ka turjumay in kelyahaaga ay cillad ka jirto ama dhagaxaan ay kelyaha ku jiraan, in maxaa la yiraahdaa infection daran uu jiro, in cancer uu jiro, waxyaabo badan ay ka turjumi kartaa. sidoo kale haddii ay gabar tahay, haddii waqtiga caada ay ku joogto waa ku arki kartaa kaadada dhiig. laakiin waxaa fiican markasta haddii kaadada dhiig aad ku aragtid inaad dhakhtar booqatid, in la xaqiijiyo waxa keenay si loo daaweeyo. qodobka afraad, haddii kaadada ku aragtid orange oo kale ama maxaa la yiraahdaa liin dhanaanta oo kale kalarkeeda haddaad ku aragtid, runtii waxay ka tarjumi doontaa kaadadaada in aad qaadatid vitamins, khaasatan vitamiinka la yiraahdo vitamin B1-ka wuxuu keeni karaa kaadadaada inay noqoto sida orange oo kale. marka haddaad vitamin B1 aad qaadatid, kaadadaada waxaad ku arki doontaa kalarkeeda sida orange oo kale inuu noqdo. qodobka saddexaad wuxuu yahay marka, ama qodobka afraad ama kalarka afraad aan rabo inuu ka hadlo, haddii kaadadaada aad ku aragtid inay tahay waxa la yiraahdo dark brown, ama haddaa si kale u dhaho madow xigeen ama mugdi oo kale haddii tahay kaadadaada, waxay ka tarjumi doontaa inaad tahay qof aan biyo badan cabin. sidaa daraadeed waxay u baahan tahay biyo badan inaad cabtid, oo waxaa tahay qof fuuq baxsan. sidaa daraadeed marka waa inaad biyaha badsataa haddii kaadadaada mugdi aad ku aragtid. qodobka afraad wuxuu yahay, haddii kaadadaada ku aragtid waxa la yiraahdo foamy urine ama xumbo oo kale haddaa kaadadaada ku aragtid, runtii ayadana 3 shay ayay ka turjuntaa. kan koowaad wuxuu yahay, haddii aad tahay qof jimeyste oo runtii borotiinada aad u isticmaalo, kaadadaada xumbo oo kale waa ku arki kartaa. haddii aad tahay qof kelyaha ka jiran ayada naftirkooda waa lagu arki karaa. haddii aad tahay qof sokor qabane, kaadadaada runtii inaad xumbo ku aragtid waa macquul. qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynaya wuxuu yahay, haddii kaadadaada ku aragtid waxa la yiraahdo cloudy, haddii ay kaadadaada tahay cloudy in color, ayadana runtii waxay ka tarjumi doontaa waxa la yiraahdo infection, oo runtii kaadadaada waxay caddayn u tahay in infection ka jirto. waxaana fiican inaad dhakhtar booqatid, lasii xaqiijiyo, daawooyinkana lagu qoro. haddaba xagga hoose noola wadaag kalarka kaadadaada